habeen loo mashxaraday ayay ahayd finaalka Champions League oo ka dhacay caasimadda Spain ee Madrid iyo istaadiyaha Metropolitano oo ay ku ciyaarto kooxda Atletico Madrid waxaana isku farasaaray halkaas kooxaha reer England ee Tottenham iyo Liverpool waliba fursadii ugu horeysay oo ay heshay kooxda Liverpool waxa si cajaa'ib leh ugu xariiftamay laacibka reer Senegal ee Sadio Mane waxaana uu gacanta kaga dhuftay Moussa Sissoko rigore ayna heshay Liverpool waxaana lagu abaalmariyay laacibka reer Masar ee Mohamed Salah oo halkaas ka dhaliyay gool ay ka muuqatay xifrad aad u weyn dhinac kastaba marka loo fiiriyo ciyaartii ka dhacaysay istaadiyaha Metropolitano waxay ahayd mid ay ku gacan saraysay kooxda Tottenham laakiin waxa ciishay khibradeeda finaalada Champions League maadaama uu ahaa finaalkoodii ugu horeeyay marka iyo wixii ka dambeeyayna waa ay dantay kooxda Liverpool laakiin waxa badbaadiyay isku xirkii wacnaa oo ay muujinayeen difaacyada kooxda Liverpool sida Robertson, Van Dijk, Joel Matip iyo waliba Alexander Arnold ma xumayn badbaadintii uu sameeyay gool hayaha reer Brazil ee Ederson waxaana cajiib ahayd sida uu kala daadinayay xidigaha qadka dhexe Fabinho oo isagana muujinayay dadaal aad u badan inkastoo garab istaag uu ka helayay il capitano Jordan Henderson Hurricane oo gool magafa ahaana waxaba shakil gelinayay in uu ciyaarta qayb ka yahay iyo in kale qaybtii koobaad waxa lagu kala tagay iyadoo gool iyo waxba ay ku orkacayso kooxda Liverpool laakiin marka la isku soo laabtay qaybtii labaad halkoodii ay ka sii wadeen dadaalada iyo waliba muujadaha weerar ee culayska badnaa xidigaha kooxda Hotspurska waxaana si wacan oo wanaagsan ciyaarta ugu dhex muuqanayay wiilka reer Korea ee Son ma xumayn Christian Eriksen iyo hal abuurnimadii Dele Alli laakiin wax waliba waxa badalay nasiibkii macallim Jordan Klopp oo badal ku soo galay isagu ayaana xaqiijiyay in Liverpool ay tahay champion ka gadal markii Benoni uu ka helay Joel Matip waxaana uu ku dhameystiray Uruji goolkii waardiyaha uu ka ahaa goolhaye Hugo Lloris 14 sano oo ay u ciishoonayeen in ay ku guuleystaan Champions League ayayna soo gabagabeeyeen xalay kooxda Reds oo u soo galbisay dhagaweynihii gobolka Merseyside iyo magaalada Liverpool qaasatan garoonka Amber Road fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe dhaho channelkeena adigoo riixaya calaamada gambaleelka hana naga iloobin in aad la agsarto muuqaalkan adigoo share gareynaya si aad ula wadaagto saaxiibada mahadsanid halkani waa Twitter channel